soo dhawaada gabadhan halkan ugu jeedin dabcan muuqaalkeeda waa ila soo daawateen haddaba gabadhan waxa ku dhacay mala socotaa inna lillahi gabadhan qisa cajiib leh ayaa qabsatay gabar walbo muuqaalkan daawanaysana waxa rajeynaa inay ku quus qaadato dabcan waxa la dhigi karaa tusaalaha nool ayaa la dhigi karaa gabadhan waxay guursatay wiil dabcan waa u jeedin arooskeeda ayaa lagu jiraa sidaas ayay u niikinaysay way kala kacsatay dabcan habeenkeeda way shidatay muusiga ka daran yahay ayay daaratay kal ilaabay u raaxaysatay balse gabadhan maxaa ka dambeeyay habeenka arooska kadib kulay ninkeeda ayay la aqal gashay isla subaxii waagi markuu bariyana warqadeeda la sii dabcan waa la furay haddaba gabadhan maxaa lagu furay waa yaaban tahay gabarnimadeeda kulay waa la dhaafiyey waana la furay hal habeen kaliya ayaa la qabay dabcan iskoor ay gabadhan ayaa u yaala dhigi karaa waana wax runtii la yaab leh haddaba gabadhan wax sababta lagu furo wax kale ma ahan niikada ee niikisay habeenka arooskeeda ayaa subaxii lagu furay dabcan waa u jeedin si u raaxaysanayso waa controlka ka tagay waa iska baashaalaysay dabcan wiilka gabadhan qaba dal iyo dibada laga soo wacay manaagta noocaas ah dadka macnaha familka wiilka ayaa ku kaceen sidaas ayuuna gabadhi iskaga furay dabcan adiga muuqaalkan daawanayo wiilow ma furi lahayd gabadh arooskeeda kaliya ee habeenka ninkisa ma u furi lahayd dabcan arrintan waa arrin ugub ah Soomaalidana way ku cusub tahay in gabar hal habeen inta la qabo subaxii la furo waliba lagu sababeeyo habeen ee ka nikisay arooskeeda maxaa abay adiga hirigaas maxaa u galiyay aroosadaaba tahay dadku ninkii maxaa u soo wadaysay walaalahay maxaa adin macnaha hadana niman kale iska dhigaysay waa iska sida qof macnaha qamri soo cabay oo ka dhacsan ayay u dheelaysay kalika say u baashaalaysay out of control gabadhan qadkii ka baxdaa dhigi karaa runtii arrintan waa arrin la yaab leh gabar walba oo ku riyoonaysa macnaha inay xaflad iyo aroos ka nikiso arrintan tusaalaha ku noqoto gabadhan ay u jeedaan ee sidaas u faraxsan oo saas u ciyaaraysa waxay noqotay gabadhii ugu horeysay oo waxa la qabay hal habeen oo qura ama si hal habeen oo kaliya ayaa la aqal galay subaxiina waa la furay oo warqadeedii ayaa la siiyay gabadhan ay u jeedaan waxa lagu furay waxa la yiri wax kale ma ahan habeenkii arooskeeda ayay iska duubtay muuqaalkan xamaasadda ayaa qaaday iyadoo ku dhex jirta rag badan oo gaaraya 15 ilaa 20 ayay waxay u ciyaartay si aan innaba caadi ahayn oo ka baxsan mataqaanaa xishoodkii iyo dhaqankii Soomaalida si ka baxsan ayay u ciyaartay oo xitaa waa ay niikisay oo waxay u ciyaartay sidii qof mataqaanaa sarqaansan oo kale ninkii habeenkii ayuu la aqal galay subaxii waxa la warqadeedii ayaa uu siiyay waa uu furay waxana uu sabab uga dhigay inaysan ahayn qof xishoonaysa qof xishootana aysan ahayn intaasoo nin hortoodna ay ku niikisay oo si aan innaba caadi ahayn ay ugu ciyaartay ayuu sabab uga dhigay warqadeeda ayuu siiyay waxana uu ku celiyay gurigii hooyadeed haddaba gabaray ogow xishoodka iyo dhaqanka wanaagsan waxa uu ka mid yahay waxyaalaha ninka ragga ah uu gabadha ku xusho bal hadda gabadha maxay faa'iido hal habeen baa la aqal galay hal habeen baa la qabay gabarnimadeedii waa la dhaafiyay subaxiina waa qof garooba oo la furay muuqaalkan sheekhdii asxaabta la wadaag sidoo kale follow soo dheh su'aashku waxay tahay dadka markay leeyihiin haasaabay sameeyaan diinta islaamka maxay ka qabtaa haasabahan soconaya 10 sano haasaabo ama xiriir jecel waa gartay diinta islaamka maxay ka qabtaa marka xiriirkan jecel 10 sano iyo 8 sano 7 sano soconaya inaad ku dheeraanaya maxay ka qabtaa su'aasha labaad waxay tahay dadkan aroosada inta badan dadka markay heshiiyaan arooska qaab meel loo dhigaa dad qaar xaafadda ku dhigtaan dad qaar hotel ku dhigtaan gabadha inta markaa ka waanaysaa dhahdo walaalay hotel dambi waaye in muusig la ciyaaro oo meesha fas ku dheel ma fiicno waxaan naga dhaaf haday ku dhahda waxaan aniga arooskayga waaye waan dhiganayaa adiga waxaan kale ii dhig oo baahanahay waa ilaa ku madax adeegto بارك الله فيك أخي وفساد وفافته ودون كنا كفافتي شريعة الإسلام كنا قول كوي بنايسين لو فرحوا
guurka farxadiisa way banay su-aasha ko dambe hataan ka qabto ama xataa tan koowaad oo ah qofka muslimka ah iyo ama dadka waxa samaynaya su-aasha koowaad maya tii labaad aan ka qabanaya insha allah tii labaad waxay tiri aroosada in oo faskhiga lagu samaynayo diinta ma ogolo qof fiir guriga cibaado waa guurku waa cibaado azawaaju min sunnati nabiga alayhi salatu wasalaam qofka maanta guursada sunnada nabiga oo dabaqay balse diintiis niskiisa oo kaamilsaday marka inuu gaalada ku daydo oo muusig iyo faskhi iyo la keeno gurigaas lagu bilaabo gurigaas wuxuu noqonaya guri fitan iyo waxaa ilahay raalkeen lagu furay marka waa musiibo caalam islami dhan haysato weye inay gabadha maalinkaas xataa gabadha xijaabneed in la soo qaawiyo maalinkaas dhar ku dhagan iyo dhar madaxeeda feeda in lasoo geliyo oo liya caawa leedahay caawa maaha wallahi qiyaamaha ayaa jirta caawa meeqa arooska ku dhinta naftigeeda ku geeriyooda marka xalay ilahay ka baqa waa dhaqan xun wey diinta shaqa kuma laha waa dhaqan xun arooska in loo farxo oo la alalaaso oo diinta way banaysay oo xataa dafka la tumi karo wax la tumi karo laakiin annaga dhaqanka gaaladan qaadano dharkii cadcadaaya la gashanaa oo dhaqankeena aan ahayn gaaladan kaga dayanay watashabuh bilkufaarna dembigeeda leedahay ama dembi badana qofka kasoo gaaray marka waxaan leenahay war ilaahay ka baqa gabdho adoo asturan oo wanaagsan ayaa xafladan kale badaqa ah haddana oo tabdiilka ku jira oo maalka badan lagu bixinayo war dad masaakiina gaajaysan waxaa laga yaabaa gabadhaas dhehaysa caawa arooskayga oo dhehaysa hoteelka waxaa laga yaabaa in qarash badan kaga baxo islaan diriskeedina caawa ay hurdo gaajo ay ku seexataa laga yaaba war ilaahay aan ka baqno oo arrimahaas la joojiyo balse waxay keentay inay dhalinyarada guurka ka mamnuucdo waa musiibo kale waa aydan maxaa yeelay gabar kasta wixii loo dhigo tan kale ay rataa hadhow ninkaa ma awoodo guurkii meeshu ku fasahaday taasaa keenta marka su-aasha koowaad keento ah inuu daaha guurka oo dadka dhalinyarada ay haasaawo iska wadaan haasaawaha inoo socdo maaha walidalika haasaawaha sharciyada islaamka waxaa loo yiraha khidbaa la yidhaha khidbadan waxaa loogu talagalay keliya wiilkan gabadhan inay isbartaan dabeecadooda inay isbartaan oo ilaa iyo sanad ilaa iyo markay u bata 3 sano inay dhaafin ay xataa curfiga bacda duul carabiya ay jirtaa laakiin hadday waxay iska socdaan waxay noqonaysaa marka shaydaan ayaa dadka qaalibka noqonayo shaydaankaasna wuxuu ku ridi karaa xumaan ku ridi karaa birina waxaa laga yaabaa marka waxyaabaha hadda mararka qaarkood su-aalaha imaanayo gabadhii igu urood intaa nikaxsan iyo waxa macsiyaan ku dhacay iyo waxaas dhan waxaa keenaya hasaawahaas dheera imaanayo qofka ilaa in muddo ku bari kartid khidbada islaamka waa ku baneeyey oo aad meel khalwa la geli karin oo dad meel ay kugu arkayaan aad la fariisin kartid xataa gurigeeda ahaad ama meel banaan oo dadka dhan ay fadhiyaan aad ku hasaawi kartaan laakiin inay faraha ka baxda mala waxaana dheereeyey lacagaa la aruurinaa oo xaflad weyn lagu dhigo war xafladaas waa nabiga alayhi salatu wasallam wuxuu ka hadlaya gabadha wuxuu guur waxa ugu barako badan kan ugu mahar yar ayuu leeyahay marka macnaheedu maxay tahay waxaa la guurka inuu sahlanaado lees guursado dadka dhalinyaradan fisqi ku dhacayaan habeenadii dhafrayaan in gabdhaha la isku guuriyo si xaaraanta u faafin ayaa loogu talagalay maxaa meherkan la qaalin meherkani waa la qaaliyay waxa meher ahayn kale oo muqaddam xataa la dhihi karo oo dhaqanka Soomaalida kaliya ayaa intaasoo kun lagu habeenkaas guurka lagu beerdan nasal salaamata waa qalad insha Allah diinta bari ka tahay